Ku soo dhawaada falanqayn la xiriirto qaladaadka filimka Filo ee baryahani kooxdana la wadaagaysay. Waxaan rabaa qaladaadkaasi soo saaraha Abuukar Mahdi dhinacyo badan ayuu ka fiirinayay. Ha u badnaato dhinaca ereyada, maadaama hore aan u sheegay soo saaraha horta filimka markuu dhigay filimku inuu qoran yahay. Qof waliba jilaha ahna wixii loo sheegay inuu siday tahay ugu dhawaaqo. Laakiin runtii waxaa jira ereyo af Soomaaliga ku jiro oo runtii isku dhigid iyo isku dhihid ah, laakiinse kala duwan. Ereygaasi naxwo ahaan waxa uu yahay. Tusaale haddaan idiin siiyo, ereyga shir waad maqli doontaan. Marna waa magac oo waa kulan aan ka qayb galayaa shir. Shir baanu leenahay. Okay, taas marka wuxuu noqonaysaa waa magac waaye. Laakiin haddaan ku yidhaaho meesha dulasha shir, waxaa waaye ood ama dabool ama dahaar. Runtii labadaas ereygaas iyo erey kaloo runtii dhex mari doono Sabriin iyo Hooyo Ardiyo oo ah runtii Sabriin ay adeegsanayso ereyga go. Hooyo Ardina ay leedahay waa qalad oo go mehe waa garbasaar. Marka Sabriin ay leedahay isku mid waaye. Go iyo garbasaar isku mid maaha, waa kala duwan yihiin. Waliila dhegeysta kabacdi waxaan saarayaa sharax iyo falanqayn markaad codka ila dhegeysataan. Kan u soo horeeyana waa kii ku saabsanaa go'a ama garbasaarta. Bal ila dhegeysta Sabriin iyo Hooyo Ardiyo. alla ay maanta dhar qurux badan baa wadataaye alla ay saacadda inta keentee nayahe ayo waan soo toobal careys ay go' qurux badan baa wadataa keen si fiican kugu xiray haade inaa u xir kan ina arkaa rabaa ani moogtahay garbasaar leedeed ma go'ba waxaan waa garbasaare sax waay maxaa go'ay garbasaar isku mid oo abti isku mid maaha waa aldayday afdheer Runtii waad maqlayseen. Sabriin waxay tiri go' qurux badanaa wadataa. Hooyo Ardina waxay tiri go' mehe waa garbasaar. Runtii marka la fiiriyo magaca saxda ah ee ku habboon kuga ee hooyo wadato waa garbasaar. Garbasaar kii garbaha la saarayo marka garabkii iyo madaxii saaran tahay. Laakiin go' waa la hugsadaa go'a, laakiin isku mid ma aha. Macnaha go'a sariirta waa maqashaa umaleynaa go'a la hugsado, laakiin weli ma aadan maqlin garbasaarta sariirta la saaro. Go'a sariirta lagu gogol, 2 go' noo gogol, 3 go'yaal sariirta ma haysaa. Marka wuu ka dhumuc weyn yahay ama wuu ka ballaaran yahay ama waa ka mug weyn yahay garbasaarta. Marka waxaa hooyo hadda ay haysato waa runtii Hooyo Ardiyo waa garbasaar go' maaha. Soo saarahana wuxuu leeyahay koonfur baan ka soo wada jeednaa, haddana lahjada kala duwan. Ma go'baa mise waa garbasaar. Marka runtii lahjad ma aha. Labadan erey go' iyo garbasaar waa ereyo jiro, laakiinse qofka naftigiisa waa inuu yaqaanaa waxa loo kala adeegsado. Markaas taas lahja ahaan lama dhihi karo, laakiin waxa waaye adeegsigii. Iyo garbasaar labadaba erey jira waaye, erey lahjad ma aha. Garbasaar waa erey gooni u taagan, go'na waa erey gooni u taagan oo labadaba fog ah. Laakiin garbasaarta waxaa loogu talagalay haweenka inay qaataan, ay isku dadaan, garbaha ay saartaan, iskuna wareejiyaan. Marka tan saxda ah waa garbasaar, laakiin lahjad ma aha. Waa erey jiro waaye go' iyo
saar inkastoo halkaasi in hakad la saar ay ahayd oo ay noqoto marka taasi waa mid balta kale ila dhegeysta insha allah horta inta arrinta muhiimka ka hadlin waxaa maqlaya qolka cumar inaad degeen aniga naa'if teeda kale ay qolkaas si dhan wada duleelaan inta la daaro haddii kale yusur ay soo fiirineen hala daaro micnihi hala xiro waaye haa nay horta ana manchar markaad ku soo afbaratay nay horta ana manchar markaad ku soo afbaratay waan yaabana maya hala daaro isku meeshi waaye hay hala xiro bismillaahi raxmaan ama hala shiro waxaan filayaa tii go'a meel ayaa isla dhignay ta labaad waa tan saabiriin waxay leedahay anagina qolkaasaan tegaynaa ee qolka kuwa duleelaaya hala daaro qolka kuwa duleelaya hala daaro marka runtii ereygaas daarid daar waxaa loo isticmaalaa duleel aad u yar markaan dib ugu laabano baadiyaha haanta caanaha lagu ruuxo daboolkeeda wuxuu leeyahay afka koro ayuu wuxuu ku leeyahay duleel yar marka waxa waaye daboolka haanta daarka ku xiri ama daarka geli marka duleelka jirka ah marna waa la geliyaa waxaa la geliyaa masalan kasoo qaat ama maraa la geliyaa ama mara yar la geliyaa ama waxaa la geliyaa meyrax badanaa baadiyaha ay isticmaalaan marka duleelka waxaa loogu talagalay sida caanaha markii la ruuxayo ruuxidii ay dhammaato qofka ruuxayo inuu ka dhadhamiyo macnaha in caanihii diyaar ay yihiin oo waxay u kala baxeen macnaha subag iyo caano ciid ah ama garoor ah marka bahalkaas yarka ah ee daboolka la gelinaa daar ayaa la yidhaahaa marka taas waa duleel aad u yar waaye laakiin hadda waxaa noo muuqato saabiriin duleelka ay sheegayso macnaha waa intaa marka wuxuu ku habboonay tan laba erey oo ah dahaar hala dahaaro waxa waaye iyo in la yidhaaho hala shiro macnaha hala daboolo waa hala shiro marka laakiin hadda soo saaraha wuxuu qaatay hala xiro xirid waxaa kaga habboonayd maadaama duleelkan duleel yar uu yahay waxaa kaga habboonayd in la yidhaaho hala dahaaro ama hala shiro laakiin daark waa runtii waa jirtaa waxba waa duleel waa iyada naftigiisa oo la shirayo ama la daboolayo laakiin duleelka aad buu u yar yahay marka ereyada soomaaliga aad bay u badan yihiin laakiin xiritaan marka la yidhaaho macnaha meeshaa duleesha dahaar waa duleel waxaan ka hadlayno meeshaa duleesha dahaar iyo meeshaas duleesha shir meeshaas duleesha xir waxa waaye ereyga xir la yidhaaho albaabka xir laakiin ma dhihi karo albaabka dahaar albaabka shir marka shirid iyo dahaarka waxa waaye waa meel la xiraa oo mar damba dib aan u furmayn ayaa la yidhaahaa dahaar laakiin daarka waa wax la gelina oo laga soo bixina daar xiridna waxa waaye wax hore iyo gadaal u noqona xir fur xir oo fur xir waxa waaye cagsigeeda ama waa lidkeeda waaye marka maalintaas ayaan ku joojinayaa inta aan ku kulmayno falaqayn kale ku saabsan qaladaadka kulan dambe oo xiise leh